الصلاة والسلام على رسول الله وبعد دمان dadka halkan fadhiya iyo dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subax wanaagsan sida aad la socotiinba waxaan ku sugannahay hotel al-Maida caawa runtii waxa ka dhacay wax aad iyo aad u foolxun aan la aqbali karin qof Soomaali oo san marna ku fikirin karin habeen madow anagoo joogna hotelkii in lagu soo weeraro meeshii la rabay in lagu qabto banaanbaxa nabadeed la soo weeraro ciidamo runtii loo diyaariyay in qarankaas difaacaan oo waajibkooda gudanayay oo banaanbaxa sidoo amni ku ahaa lahay ka shaqeynayay in lagu soo weeraro hubkii iyo wiilashii loo diyaariyay in qaranka Soomaaliyeed difaacaan oo ay mataqaana qaar dilaan oo qaar dhaawacaan oo argagaxiyaan dadkii aad iyo aad anagu xunna waana runtii wax dhaawac weyn u geysanaya sharafta iyo hamiga weyn ee dadka Soomaaliyeed u leeyihiin qarannimada 60 sano in ka badan ayaan qarannahay maanta waxa la filaaya waxa waaye nidaamka dimuqraadiyadu inuu si wanaagsan u tilaabo qaado maxaa yeelay waxaan soo aragnay dhibaatada ay leedahay diktatoriyadda dhibaatada ay leedahay sharciga oo lagu tunto dhibaatada ay leedahay xuquuqda aadanaha oo lagu tunto marka maanta waxaan filaynay in aan ka soo waantownay oo aan u soconno qarannimadii inaan u soconno horumar inaan u soconno dawladnimo iyo Soomaalinimo laakiin nasiib darro waxa ah dadkii loogu talagalay inay difaacaan qaranka qofka Soomaaliga sharafkiisa difaacaan amnigiisa sugaan in asaga lagu soo weeraro sidaas darteed dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa arin muhiim ah inaad ka jawaabtiin oo arin muhiim ah inaan ka wada jawaabno halkan waxaan u joogno waxa waaye xoojinta dawladnimada xoojinta dimuqraadiyadda xoojinta xuquuqda aadanaha oo la'aanta dawladda inay istaagi karin marka waxaan ugu yeeraynaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meesha ay joogaanba guriyahooda inay ka soo baxaan oo istaagaan xurriyadda oo istaagaan dawladnimada oo istaagaan sharafka banaanka u soo baxaan mataqaana isugu yimaadaan meelaha la isugu tago banaanbax waxaan qabaa kaliya kuma koobnaanayo magaalada Muqdisho magaalooyinka Soomaaliya dhamaanteed waa in laga sameeyaa waa in loo soo banaanbaxa arintan arin muhiim waaye ummaduhu sharafkooda iyo qarannimadooda iyo dimuqraadiyadooda waa difaacaan waxa ugu dambeeyay waxay ahayn miimaar waa la socotiin wixii ka dhacay waxaad aragteen shacabka Turkiga wixii ay sameeyeen oo geesinimada lahayd waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed inay ka geesinimo badan yihiin ay sameey karaan wax ka weyn qof kasto isku dayo xukunka inuu isku dhajiyo ku gaaro ku joogo si sharci darro ah waa in la tusiyaa xaqiiqada madaxweynaha waa lagu ixtiraamay waqtigiisii waxa aan dalbanayna waxa waaye doorasho xur ah oo xalaal ah wax kale oo aan dalbanayna lama arko waxaan u banaan baxayna waa intaasna in la soo dhaweeyay mudan tahay in dhibaato la isugu geysto ma mudna marka dadka Soomaaliyeed maanta waxaan rabnaa inay u heeliyaan xurriyadda inay u heeliyaan dimuqraadiyadda inay u heeliyaan dawladnimada inay u heeliyaan sharafka ummadda Soomaaliyeed inay ka hortagaan dhulumka iyo waxa dhacaya meesha waxa lagu soo weeraray waa beebayaal anaga waxa aan wadanay waxa waa istaafiyo khaas oo anagana waardiinay in maanta beebayaal lagu soo weeraro oo wali haddana loo sheegayo abaabul xoogan inuu socdo aad iyo aad anagu xunnahay dagaal dadkii ka soo shaqeeyana waa la ogyahay meesha ay ku dambeeyeen dagaal cadaalad darro ah oo dhulum ah guul kuma dhamaado marka waa ka waaninaynaa madaxweynaha inuu halkaas ku joojiyo maanta dhiiga daatay dhibaato dhacday ummad Soomaaliyeed la argagixiyay waxaan leenahay madaxweyne kafaak waxaad geysatay dhaawac weyn aad ummadda Soomaaliyeed u geysatay halkaas ku jooji wiilasha Soomaaliyeed lagu abaabulay dagaalkana waxaan leenahay ka jooga waxaad gacmaha la gasheen waa dhiig hubna waa yaala magaaladan Soomaaliyana waa yaala wiilalna waa joogan laakiin ma rabnaa inaan isticmaalno waxaan rabnaa inaan isticmaalno nabad waxaan rabnaa inaan isticmaalno dawladnimo waxaan rabnaa xukunkaas 4 sanaba in la isdoorto cidii la doortana ay hogaamiso hal soo baxaan idin leenahay waa mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh